maalintii dhaweyto waxaan dharka ka soo dhaqanayay meel aan alaabta dhan lagu wada guray oo 300 bay ahayd mashiinka marka lagu daaray laakiin maanta waxaan geystay dharkay meel 3 shay iga maqnaayeen marka haddaan isleeyahay soo qaadatid door hore waxaan ka soo dhaqday meel aad dharka aad ku guranaysid laakiin tan way ka duwan tahay waxa weeye waa hal mar aad u geynaya dhowr cishay haynayaan feerada wax kasta iyaga dhammaystiray laakiin waxay ku xisaabinayaan calaa shay bay ku xisaabinayaan sida funaanadahoo kale waa price gooni ah waa qiimo gooni ah surwaaladoo kale 35 bay ka dhigaan funaanadaha 25 marka hadda isleeyahay aad ka qaadatid hotelka ma dheera waa u dhow yahay دبقة በትላልቅ አውራ ጎዳናዎች ላይ መንገድ መዝጋት kan dharkii oo dhammaystiran Agak mengkipsan ya Pak. Tukana. Alamat tukang ke egi. farqiga u dhaxeeya ina mashiinka kuwaas kale waagi dhaweyta awgiis iyo kuwan waxa weeye kuwaas hal maalin hal saac wax kasta kugu soo dhamaanaya laakiin noocan oo kale meelahan oo kale laundry ku yaala kuwan dharka dhaqa waxay dhowr cishay kala maqnaanayaan ugu yaraan 2 cisho qaarkood 3 cishay kala maqnaanayaan qaar 4 cisho laakiin mid hore video ka sameeyay jirta oo dharka geystay taas oo kale hal saac wax kasta kugu soo dhamaanaya laakiin feero ma laha waxa dhanada samaysanaya da hotelkan galina hotelka waaka salaam hadana waxa ku yaala bangi key. Okay, thank you. hotelkan dhibka kaliya uu leeyahay waxa weeye ma laha wax elevator dabaqa afraad baan degana dabaqa afraad baan deganaya markaad jaran jarto soo fuushid aad iyo aad u dhib badan tahay nood baan ku qorqortay inta funaanadooda inta surwaal marka waxaan xisaabinayaa inay ii dhantaayeen kala haday wax ka dhimanaadaan waxaan diin ka soo dhawaada channelkayga maanta qorsheena waxa weeye inaan ka soo cuntayno xaafadda Soomaalida ay ka degan tahay Addis Ababa oo loo yaqaan Bolo Michael xaafadahaas way maanta qorsheena waa 12 duhurnimo laakiin roob soo socda xaafadahan deganahay waxa la dhahayaa Hulad wadadan waxay kugu soo ridaysaa wadada Inna Mall
xaafadaas waxaa loogu magac daray airportiga bay daris yihiin xaafado badan ay daris yihiin sida like bowling hill baa horta ugu darisan ugu dhow airportiga iyo bulbula xaafadaasna xaafada Bole Mikael waxaa loogu magac daray iyadana kaniisad ku dhex taala xaafadaas baa jirta Bolena waa airportiga ka Bole aad bay u ballaaran tahay laakiin marka Mikael ay timaado waa inta iyaga gooniga u sii ah maanta qorsheen oo xagaas waxayna ka mid tahay xaafadaha ugu wasakhda badan marka bas baan qaadan doonaa inta badan marka magaalada wax ka soo duubay ama aan soo baxo taxi ma qaato ayo si magaalada iyo basaskoodii waxaas baan aad iyo aad u xiiseynaya laakiin xaafadaas cuntooyinka Soomaalida inaad ka heshid mooyee inta kale waa lagaga fiican yahay waayo aad iyo aad bay qaali u tahay qaali ha noqoto haddana wayna ugu wasakh badan tahay magaalada sida Islii oo kale tagaasida ka shaqeysa xaggaas inta badan ma isticmaalaan ride iyo faras iyo waxyaabahaas marka dadka inta badan markaad dhahdo faras iyo waxaas u baahanahay waa dadka xaggaas jooga waxay u barteen dadkaas in lacagta ku qaali gareeyaan marka wuxuu leeyahay meeshaas aan ku geenayaa la 300 400 meelahaas takala hoteelada xaggaas ka dhisan waa qaali markaan qaali leeyahay waxa weeye hotel isaga u qalma oo ka qurux badan ba xagga waxa ku helaysaa lacag aad iyo aad u yar meelaha kale ka xaafadaas cuntooyinka miyaa oo kaliya ina ugu xulatid laakiin si kale kuma fiicna boole waan ka soo degay waa shambir oo waxaan $0.5 dhannayn taxiga xaggan wuxuu igu keeni lahaa 130 meelahaas meesha shambir aan ku soo dhacay marka qaar waa iska fiican tahay inaad taxi markasta inaad raacin si aad lacag badan u safe garaysid meelo la fariisto way जागे airportigi xaggaas naga xiga ka darbigiisa
wadada dhinacna waa mari kartaa dhinacaas meesha bridge hoostiisa tanna waa mari kartaa ka tan bridge hoostiisa rabnaa inaan marno bridge hoostiisa waxay ku sameeyeen meel ay shaaha iyo burka iyo waxyaabahaas lagu cuncuno airportigina xaggaas iyo kabaana lagu baalashaa meeshan bur iyo rooti adu waa meel yaroo sambuusiyo waxaa saxayaan masaakiintana habeenkii way seexataa roobkii waxaasoo dhan ka celiya مساكينta xagana kale bridge-ka aad iyo aad baa loo jecel yahay inta badan masaakiinta waa madow habeenkii halkan lugaynta kuma fiicno laakiin maalinkii oo kale waa caadi أنا أقول لك لوز airportiga marka la galayna waa kaas darbiga si loogu dhagxaanta loogu sameeyay labadan dhinacna biyaa ka dhacaya waliba markaad dhinaca shisha bannaanka joogtid si fiican bay u qurux badanta marka bannaanka shisha aad joogtid xaggana waa beer dhinacan kalena waa isku mid xaggana beer yar bay ka sameeyeen ilaa halkan dhinaca kalena waa wadadan hadda waxaa weeye wadada Bole Mikeli geynaysa xagga kalena Bole Rwanda mid ku geynaysaa jirta laakiin wadadan hadda waxaa weeye Bole Mikeli waa skylight-ka hortiisa marka ma rabo inaan taxi qaato maadaama عاد aysan jirin ka halkana ilaa waan usii lugaynaa adiyo 15 daqiiqo kama badno meelahana waxaa basas baa ka baxa halkaas oo hore geedkii labaad weeye skylight-ka albaabo badan oo laga galo leeyahay بصير تحتي حي wadadan marka ku lugeynaysid airportiga darbigiisa ilaa iyo kula soconaya marka xaafadda tagtid
waxaan ka wadaa ilaa iyo wuxuu kula soconayaa xaafadaha Boole Mikeel. meelahan basaska ka baxaan meelo kala duwan ay tagaan laakiin Boole Mikeel kaliya maaha. meel kastoo basas ka baxaanna meel cunta u ag dhow oo yar oo la heero. waxaa ku yaalla hotel hotelkan waddadu saaran caadi maaha. halkaas waxaa ku yaalla iskuul lagu barto bayloodnimada. kalena waa hotel. derbigaas oo dhan waa airportiga ilaa iyo hadda xoogaan soo socday wali qaybtan waa qaybta cargo-ga diyaaradda xaggaas fadhida America. qaybta waa qaybtii cargo-ga. xaggan waa hotel Samara baa la dhahaa. wadda dhinacan kale tegi doono waxaa weeye Boole Rwanda. waddadii weyneed baan ka soo baxay airportiga dibna waddada ma soo qaado. xaafadahan kale waxaa la dhahaa Boole Rwanda. waxaa loogu magac daray waxaa ku taalla safaaradda Rwanda. inkastoo ay demi rabto kaamerada haddana waxaan idin tusayaa xaafadan Boole Rwanda. waa xaafado ka degan xaafadan kale aan socda ee Boole Mikeel. xaafado aad iyo aad u qurux badan. xaafado buuq yar wey. xaafadahan gurigan soo dhisan yahay. xaafadaha sidan iyo sidan gurigan kalena eg. wali waxaan ku suganahay xaafadda Boole Rwanda. xaggaas wixii ka dambeeyay Boole Rwanda oo laga baxay Boole Mikeel baa la galay. xaafadahaas oo dhan way qurux badan yihiin wixii xaggaa ka bilowma. laakiin wixii xaggan ka bilowma waxaa loo geli doonaa xaafado dhiiqi iyo waxaas. laakiin taleefanka iga damiya waxaan ka wadaa kaamerada iga damaysa. xaggan wixii ka dambeeya waxaan gelaynaa xaafadaha Boole Mikeel. xaafadahan markaad soo geshid dhiiqada iyo waxyaabaha xaggan kaaga bilaaban
iyo meelaha ganacsiga laga sameeyo ee Paul Michael roob baa soo daatay waa xaafadaha ugu dhiiqada badan laakiin ganacsiyo badan baa ku yaal iyo hotel iyo meelo badan oo cuntooyinka laga cuno iyo waxaas oo dhan meelahan oo dhan ay dadka fadhiistaan meelahanna waxaa lagu cabbaa liinta iyo waxaas xaafadan dowladda waan garan la'ahay waxay meelaha ganacsiga ku yaala aga dhiiqada wadooyinka ugu xun bay leedahay meeshan dowladdu waxay ganacsiyada Soomaalida waa kuwan